xisbiga kulmiye aynu ku wada garanayna aan soo dhaweeyo waxaan soo dhaweynayaa xisbiga ucud waxaan soo dhaweynayaa xisbiga wadani waxaan leeyahay dhammaantiinba waan idin soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa fanaaniinteena qaaliga ah ee runtii madaalayaasha halkan jooga sida faarax murtiile iyo maxamed gure oo halkaa iga muuqda aan leeyahay idinkuna soo dhawaada iyo fanaaniinta inoo iman doonta inagu soo biiri doonta haddaan isahdo qof iyo hal dheer waan ku daali doonaa caawan anaa mikrofoonka haysan doona balse dhammaantiinba waxaan idin leeyahay guddoomiye waanu idin soo dhaweynaynaa adiga oo ka mas-uula dhammaanba inta marasada kula joogta iyo inta halka caawa soo fadhida ee adiga iyo inta hogaaminaysa idiintiri soo dhawaada waan leeyahay waxaan doonayaa inaan siiyo hablaha quruxdan iyo shacbigan iyo wanaaggan aynu aragtaan ka soo shaqeeyay aynu harsanayno inaan kelmad siiyo walaashay maxaa la yidhahdaa sahra axmed carab aan kelmad siiyo walaashay waxaan salaamayaa guddoomiyaha iyo xildhibaanada uu wado dhammaantood waxaan kaloo salaamayaa marti sharafka qiimaha iyo qaayaha badan waxaan aada u salaamayaa bahda TV-ga waxaan aada u salaamayaa maxay ahayd toole dumarkan aadka u quruxda badan ee meesha noo soo camiray eenaan la-aantood maanta halkaa nimaadneen anuu hadal badan uma soo korin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayru kalaam man aqalla wa adal 3 kelmadood baan rabaa inaan idhaahdo laba waxaan leeyahay xildhibaanada iyo wafdiga midna shacabka Somaliland labada aan leeyahay xildhibaanada maaha canaan laakiin waa fariintayda koowaad waxay daaran tahay waxaan leeyahay oo aan waliba aan aad u jecelahay in ilaa madaxweynaha la gaarsiiyo kelmadayda in golaha baarlamaanka hablaha Somaliland ay ka dhex muuqdaan waxaad ogaataan inaan haddaan dumarnahay horta waxba idinka riixan mayno laakiin waa idinla shaqaynaynaa inanta Somaliland anigoo kale haddaan iska soo qaado xildhibaanadii maalintii dhaweyd sharaxaya waan ku jiray laakiin familygaygu waxay igu yidhaahdeen kursigaa waxaan rabnaa nin reer hebel inuu noo fuulo ma odhanaya yaa wax noo qaban karaa yaa khibrad leh yaa hawshan qaban karaa marka aniga oo inantaa matalaya reerkii i dhalayna qabiil baan ka ahay reerkii aanu dhaqmayna qabiil baan ka ahay waxaan rabaa in la sheego bal meeshaan ku tiirsanahay اعتراف رادس بان هاي الله اعترافه تاكو سيديرانو يو تكله aan dardaaranka waxaan xildhibaanadan faraya xildhibaanadu waa xildhibaano iminka intooda badani dhalinyaro ay yihiin marka waxaan rabnaa inaad mujtamaca u shaqeysaan oo shaqada aydin cadaalad sameysaan gacmaheena inaga meel hadaf iyo hiisada la saaray intaas oo soo dhaweeyay wadanka oo dhibaatada aan badan marayaan aad iyo aad baan u salaamayaa haweenadii dhammaantiin wada salaamaya wabillahi tawfiiq أرجع ومحسنتي روتي وحن شعلها روتي أنا كعذر دارنا يتيم كاي وقتها وحن شعلها وقت استوى الرسول توجي على الولد الجنوبي السعودي توجي على الولد وقت بدأ كفاية سنة بدأ مع الفراغ وحضر وحن أرجع أشوف المؤمنين ولكن حسن سليمان روحوا أيام أدي أسود لنا وعطا يشوفوا من يشوفوا هنا عند المشهدين يشوفوا ونقول شو قبل كده يحفظوا ولي ويصاص على أو هو بدن باجرة يوم يرى بدن والله قاعد waxaan la eeyahay xildhibaanada aan faraya sida ay ula soo wada kulmi lahaayeen tii shaaliyadu ay isku la qabsan lahaayeen ay uga sii wada shaqeyn lahaayeen iyaguna wixii ma garanaysaa ay la noqon lahaayeen oo ah in waxa iyaga aanu ka aragno ayuu anagu wax ku qabanaa marka iyagana waxaan rajeynayaa insha Allah bismillaahi kariim in maaragtay uu ka yimaado dardaaran fiican iyo maxaan ku rahaa waxa tar aan tijiidan lahayn halkana hoos haw yar eegaan runtii aad buu kala qaybsan inshaaliyada reer UK taasna iyaga aan farayaa waan dhabaantina waan wada salaamay hada badan ha oran baa la igu leeyahay salaam calaykum aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii hadalkaagana si aad igu soo koobtay waad mahadsantahay waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka
West London Somaliland Community walaalkay liibaan gudoomiye ku-xigeenka Giire walaal waan salaamayaa adiga iyo xildhibaanada aad maanta hogaaminaysid ee xagan ugu soo boqday aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa Ingiriiska waan arkanaa walaalayaal sabab kastaan umadiini waa qaban iyagoo isku duuban iyagoo walaala iyo meel kastaba ugu soo dhaweynayaan airportka ugu soo dhaweynayaan meel kasta xaflad kasta oo joogtaana waxa weeyaan jacayl wadankii aan u hayno iyo inaanu tusno inaanu dad jira oo maanta Ingiriiska gacmo ay haystaa inaanu nahay walaalayaal soo dhawaada war fiican wadankii insha Allah wada gaarsiin doontaan kaasoo Mr. Boss oo safaaradda ka tirsan walaalada ku salaamaya gabigiin walaalayaal waan insa walaalkay baashi waxaan jooga waan salaamaya kulligiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mudane adinka waan wasaaqa gabigiin waan salaamaya jaaliyada UK rag iyo dumarba leh caawa xafladan aad u bilan ka soo qayb gashay dhammaantiin waan salaamayaa waxaan u mahadnaqayaa dadweynihii soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha koowaad ee golaha muxuu ahaa baarlamaanka Somaliland mudane Siciid Mire Giire waxaan kaloo soo dhaweynayaa xildhibaan Siciid Abubakar waxaan kaloo soo dhaweynayaa xildhibaan Xasan Laab Saalax waxaan kaloo soo dhaweynayaa pastorkeennii hore Baasha Cawil waxaan soo dhaweynayaa maayarkeennii ugu weyn haddaan nahay UK laba kalmood baan oranayaa kelmad waxaan farayaa baarlamaankeenna oo aan leeyahay waxa lagu kala socdaa waa sharcigana inniga ayaa noo soo hagaajiya waxaan idin farayaa waxaanu maanta lana ku joognay aanu ku kala wacwacanayno ee aanu muxuu ixtiraamaynaa sharci baanu ka baqaynaa waxaan niga dalbanaynaa in aad sharcigu siduu yahay loogu shaqeeyo oo intaana ay gaadhsiisaan ta kale raacsanaya waxa weeye waxaan leeyahay qurba joogaan fariin farayaa waxaan leeyahay baryahan dambe waynu wada ognahay miidiyihii cayayaan baa galay meel walba ka hadlaya meel walba taagan ha dhagaysanina ha maqlina waayo waxa weeye warkii imika inta runtaa iyo inta beentaa waxa badan inta beentaa badan ee runta raadiya hadiyo jeer intaasaan ku soo gabaynaya hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay waxaan salaamayaa saddexda xisbi qaran ee caawa halka kan iyaguna ku sugan oo ay wada joogaan dhammaantoodba xafladda tan haddii aan marlabaad ku celiyo waxa weeye munaasabadda tan qiimaha badan leh waxaa soo agaasimay jaaliyad ka tirsan jaaliyadaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Britain oo runtii isku xilqaabay in ay guddideeda iyo maxalliga xildhibaanadooda ay dhammaantoodba u sameeyaan sagootintan iyo xafladan qiimaha badan ee ay la kulmeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaanan jecelahay inaan idinla qaybsado xafladan farxadan wanaaggan isku imaatinkan aynu ku soo dhaweynayno kuna sagootinayno madaxdeena qaranka ee uu hogaaminayo gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawshan quruxda badan ciddii inoo soo qabanqaabiso habluhu badan yihiin marka wax badan odhan maayo runtii caawa waqtiguna waa waqti dambe wuxuun baan leeyahay aan farayaa baarlamaankeenna oo anigu aan qayb ka ahaa runtii iminkana aan ku dhadhowahay waxaan leeyahay uun fariimaha laydin farayo ee kala duwan eed weliba waaya aragnimada deegaanka halkan iyo baarlamaanka waad u hesheen inoo dhaqangeliyo inaan mahadnaqeediyo ciddii soo abaabushay xafladan quruxda badan leh aynu isugu nimid aynu ku sagootiyeyno wafdiga ballaaran ee inooga timi dalka ma hawl yaraa agaasimka iyo iskuguridka xafladaha caynkan oo kale ah hawl iyo waqti badan bay u baahan yihiin waxaan leeyahay ciddii soo casuumtay aad baa u mahadsantihin wafdiga waynu soo dhaweynay in badan bay nala joogeen way arkeen sidaynu u noolahay dalkaynu ku noolahay
inaynu nahay jaaliyad isku duuban oo waddankan degtay oo waxtar badan oo waddankii u leh waxaan jecelahay guddoomiye talooyinkan la bixiyey ee jaaliyaddu bixisay oo odayadii halkan ka hadlay ay ku taliyeen inaad fariintaan naga qaadaan oo gaarsiisaan dalkii haddaan nahay nagu jaaliyadda halkan sidaad og tahay waddanka waxaa ka badan 40 sano markaa meel aan u soconnaa ma jirto waddankiina dadkii baanu ka maalnaa waxtarka iyaguna wuu gaaraa waddankii waxaan jecelahay oo qula anigu aan kula dardaarmay horta jaaliyaddeena halkan degan horta asxaabta waddankii ka jirta inaynu iska ilowno asxaabtaas wayna kala qaybisay waa inaynu ku kala biirnaa asxaabta halkan ka jirta gaar ahaan xisbiga leebarka si aynu yeelano xildhibaano badan oo golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ah oo danaheena ka shaqeeya kuwaas hadhowna dalkeenna anfacaya hadalka badi maayo caynaabilo way daba taagan yahay guddoomiye iyo wafdiga ballaaran waxaan leeyahay nabadgelyo waan sii ambarbixinaynaa nabadgelyaandu leenahay waddankiina haddii ilaahay ka dhigo waanu ka daba iman doonaa dardaarankaygana halkaasaanu keenaynaa wixii waxtare aan wadnana halkaasaanu keenaynaa waanu jeclayn inaanu judhiibno qoraal tala ah oo tala bixina laakiin dee waqtigaan inagu simayn haddii waqtigu inoo ogolaado waanu disiin doonaa mustaqbalkana waxaanu jecelnahay inaad dib noogu soo noqotaan oo aad nala daawataan sida xildhibaanada halkan u shaqeeyaan ha aadan golaha baarlamaanka ama golaha deegaanku wixii kale taakuleena dhinaca farsamada ah ee tababaradaana wixii imika dambeeya way idinla shaqayn doonaa waxaan ku rajo weynahay ilaa December in aanu haddii ilaahay ka dhigo dib idiin soo casuuno oo aanu idinku caawino wixii tababaraa ee xagga technicalka ay u baahantiin xiriirkeenu halkaasuu ka bilaabmayaa aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad u jecelahay markaan miisaska eegay waxaan arkay mujaahid waxaan arkay oday waxaan arkay qof aan u malaynayo wixii imaaraadka soo maray oo dhani inay garan karaan qiimo badan ku leh jaaliyaddeena Somaliland qiimo badan ku leh limaa yacrafaka maa yahamanaka baa layidhi qofkaan ku aqoonna kuma qiimeeyo doctor maxamed aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa mikrofonkana kugu soo dhaweynayaa soo dhow doctore aad baan kuu soo dhaweeyey haddii magac jiray imaaraadka haddii uu jiray ii soo dhawow doctor maxamed haddii uu magac jiray haddii shuyuuq lala soo shaqeeyey haddii sheekh saa'id la is taagay in badan oo taariikha waanu hayaa soo dhawow aad baan kuu soo dhaweynayaa doctore kelmaddaada aad odhanaysaa waa habeenkii ugu horreeyey oo meel munaasabadan oo kale la soo taagay baan filayaa soo dhawow وايد السلام يا بالك ما أغاني ولا جينكم حاضرين نبى سويت شيء ماشي إن حبيبي وناكسن مرتي ذا شرفت له سواء عمرتي كلن كان رجع دمر وايد السلام يا وحلا له وحي سلمان الأوجين ما قاعد يقوم هني بك بغليا وحمد لله هاي حبيبي وناكسن تحكته waxaan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha iyo xildhibaanada dhammaantood waxaan leenahay ahla wasahla sharaftuuna ilaahay waxaan iska baraynaa inaad dalkii nabadgelyo u noqotaan dee wax kale ma haya asalaamu calaykum waraxmatullaahi نفسك بقلبي قبلها ولا نقصها ميا لبو قلبي 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 قبلها ولا مركز وين تعرفوني هذيك قبقابي قبلها ولا نقصها ميا بقلبي قبلها ولا نقصها ميا بقلبي قبلها ولا نقصها
qosla miyaa lagu qayliyaa Thank you.